warbixintan waxaan ku eegaynaa 10 kooxood ee iibiyay fanaanadaha ugu badan xilli ciyaareedkii tagay waxaana ka yaabi doonta nadiga kaalinta koowaad gashay balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena like sar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan share leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena sidoo kalena subscribe dheh YouTube channel-keena kambalelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelino mahadsanid kooxda kaalinta 10aad gashay waa kooxda Manchester City oo iibisay 950,000 oo fanaanadood lambarka 9aad waxaa gashay kooxda Gunners oo iyana iibisay 1.5 milyan oo fanaanadood lambarka 8aad waxaa si la yaab leh ku gashay kooxda PSG oo iyana iibisay 1.12 milyan oo fanaanadood kooxda 7aad gashay waa kooxda Chelsea oo xilli ciyaareed aad u xun soo martay balse waxay iibiyeen 1.19 milyan oo fanaanadood lambarka 6aad waxaa gashay kooxda Juventus oo iyana iibisay 1.25 milyan oo fanaanadood lambarka 5aad waxaa gashay kooxda Barcelona oo iyana iibisay 1.82 milyan oo fanaanadood hadda waxaan gaarnay tirada 2 milyan lambarka 4aad waxaa gashay kooxda Liverpool oo iibisay 2.2 milyan oo fanaanadood lambarka 3aad waxaa gashay kooxda reer Germany ee Bayern Munich oo iyana iibisay 2.8 milyan oo fanaanadood hadda waxaan joognaa tirada 3 milyan lambarka 2aad waxaa gashay kooxda Real Madrid oo iyana iibisay 3.1 milyan oo fanaanadood ugu dambeyntii kaalinta koowaad waxaa gashay kooxda reer England ee Manchester United oo xilli ciyaareed aan wanaagsaneyn soo bandhigtay xilli ciyaareedkii dhamaaday waxayna iibisay 3.2 milyan oo fanaanadood taasoo ah ay ka badan fanaanadaha ay iibiyeen dhammaan kooxihii aan hore u soo sheegnay waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo ah idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabduuli Macallim Alto like muuqaalka sidoo kale share leh ama adariska inoo taabo mahadsanid